waa muuqaal daahqaadaya xogo dhowr ah oo ku saabsan dalka dhaca bartamaha Yurub ee loo garan og yahay Poland. Sida rasmiga ahna la yiraahdo Republic of Poland. Waa dal leh taariikh qoto dheer, wuxuuna ka mid yahay dalalka ay wali dadkiisu ku dhagan yihiin dhaqamadooda soo jireenka ah. Haddaba ku soo dhawaada xaqiiqooyinka mudan in la xuso ee ku saabsan dalkan uu ka bilowday dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii uu Jarmalku ku duulay. dalka Poland waa dal dhaca bartamaha Yurub, wuxuuna xad la leeyahay ilaa 7 dal oo kala ah: Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Germany, Belarus, Russia iyo Lithuania. Waxaana dhanka waqooyi kaga beegan badda Baltic. Waa dalka 69aad ee ugu dhulka weyn caalamka iyo dalka 9aad ee ugu dhulka weyn Yurub, wuxuuna ku fadhiyaa bad ka badan 300,000 kiiloomitir isku wareega. Sidoo kale waa dalka 5aad ee ugu dadka badan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub, waxaana dadkiisa lagu sheegaa ku dhawaad 40 milyan. Wuxuu dalka Midowga Yurub si rasmi ah uga mid noqday 1 May 2004. Sidoo kale wuxuu dalkan xubin ka noqday ururka NATO sanadkii 1999. laakiin Poland waxay ahayd dawlad shuuci ah kadib 1989 ayayna noqotay dawlad dimuqraadi ah, xisbiyo badanna ay ka jiraan. Kadib dagaalkii labaad ee adduunkana, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii qabowga, wuxuu ka mid ahaa isbahaysigii Warsaw ee la aasaasay 1955, wuxuuna ahaa isbahaysi ka dhan ahaa NATO. Caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalkan waa Warsaw, waxayna dadka magaaladan magaceeda yiraahdaan Warszawa. Waa magaalo dhacda bartamaha bari ee dalka, gaar ahaan halka uu maro webiga 9aad ee ugu dheer Yurub ee Vistula. boqolkiiba 85 oo dhismayaashii magaaladan ah ayaa ku burbureen dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna dagaalkaasi bilowday kadib markii uu Hitler ku duulay dalka Poland. Haddaba Warsaw ma caasimaddii ugu horeysay ee Polandba? Caasimaddii ugu horeysay Poland waa Gniezno, waxaana ku xigtay Krakow oo ugu dambeyn taajka ku wareejisay Warsaw. Magaalo waxaa jirta la yiraahdo Radom oo 100 kiiloomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Warsaw, waxayna magaaladan bad ahaan ka weyn tahay magaalada Paris, balse 10 jeer waxaa dad badan magaalada Paris. Luuqadda dalkan waxaa la yiraahdaa Polish, waana luuqad ka mid ah luuqadaha ugu adag caalamka, balse ma ahan mustaxiil in la barto. Sidoo kale dadka dalkan waxaa loo yaqaanaa Polish, waxayna dadka dalkan ka yihiin 98%. Magaca dalkan ee Poland waxaa loola jeedaa dadkii ku noolaa beeraha furan ama dhulka furan, waxaana lacagta dalkan lagu magacaabaa Polish zloty. Poland waa mid ka mid ah dalalka diimeysan ee caalamka, sida guudna dadka dalkan 94% waa kuwa haysta diinta Kirishtaanka, intooda badanna waxay raacsan yihiin kaniisadda Roman Catholic. Wuxuu sanadkii tagay ahaa dalkan midka 6aad ee ugu dhaqaalaha badan dalalka Midowga Yurub, waana dalka kaliya ee Midowga Yurub ka mid ah ee ka badbaaday dhaqaale burburkii 2007 ilaa 2008. Wuxuu dhaqaalaha dalkan si joogto ah u kobcayay 28 sano ee la soo dhaafay, wuxuuna si weyn ugu tiirsan yahay dhanka beeraha iyo warshadaha. Sidaas daraadeed, waxay Poland ka mid tahay dalalka Yurub ee ugu hawada wasakhaysan. 100 magaalo ee ugu hawada wasakhaysan Yurub oo ay majalada Forbes shaacisayna waxaa safka hore ku jiraan 3 magaalo oo Poland dhacaan. Dalka Poland wuxuu fadhiyaa kaalmaha dambe marka la eego dalalka ay dadka ugu badan u dalxiisaan ee dhacaan Yurub, kumana jiro 10 dal ay dadka ugu badan booqdaan isla markaana dhacaan qaaradda gabowga ah. Balse taasi kama dhigna in uusan dalkan lahayn goobo dalxiis, oo waxaa jirta magaalo xeebeed yar oo lagu magacaabo Meleno oo ah halka ugu caansan ay dalxiisayaashu u jihaystaan. Sidoo kale waxaa jirta magaalo warshadeed oo dhacda dalkan oo lagu magacaabo Lublin. Waa magaalada 9aad ee ugu weyn dalka, waxaana la dhisay qarnigii 16aad, waxayna ahayd difaaca guud ee Poland. Waxaa laga helaa dalkan qalcadda ugu weyn caalamka oo lagu magacaabo Malpok, waxaana la dhisay qarnigii 13aad. Sida guudna waxaa dalkan laga helaa 16 goobood oo taariikhi ah isla markaana aqoonsan tahay UNESCO, iyo 1200 oo goobood oo dabiici ah. 3 meelood meel oo dhulka dalkan ahna waa kaymo, wuxuuna leeyahay dhul qalalan oo saxaro ah laguna magacaabo Peledo. Waxaa si sanadle ah dalkan loogu qabtaa dabaaldegga muusiga ee ugu weyn Yurub oo lagu magacaabo Pole and Rock Festival, waxaana dabaaldeggan 2014 ka qayb galeen dad ku dhow 1 milyan, balse sanadkan waa la mamnuucay, sababtuna waad ogtihiin.
dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka Yurub ee dhaqamada soo jireenka ah wali ku dhagan, waxaana muhiim ka ah dalkan nolosha qoysnimo. waxayna dadka dalkan u caada ah inay isguursadaan ayagoo da'yar ah, taasi oo ay kaga duwan yihiin dalalka kale ee Yurub. dalkan waxaa ka dhaqan ah in ay raggu gacmaha ka dhunkadaan dumarka. sidoo kale waxaa ka mid ah cabitaanada dhaqanka ee dalkan qamrada la yiraahdo vodka oo ay dadka dalkan aad ku cabaan. waxaa jirta maalin la yiraahdo Marzana oo uu dabaaldegeedu bilowdo dhamaadka xilliga qabow. dadka u dabaaldegana ujeedkoodu waa inay sugootiyaan xilliga qabow. waxaa jira dabaaldeg sanadle ah oo ay sameeyaan dadka Boolishka ah ee ku sugan Argentina, waxayna dadka Boolishka ah u dabaaldegaan imaanshahooda Argentina, gaar ahaan Boolishkii ugu horeeyay ee Argentina gaaray 8 Juun 1897. marka laga yimaado Brazilna, dalka Argentina ayaa ah dalka labaad ee dadka Boolishka ee ugu badan ku nool yihiin marka la eego Latin America. balse magaalada New York waxaa ku sugan in ka badan 1 milyan oo Boolish ah, taasoo ka dhigan marka laga yimaado Warsaw in ay New York tahay magaalada ay ku sugan yihiin Boolishka ugu badan. haddii aad ogeyd qof u dabaaldega maalinta dhalashadiisana, haddaba daawade, dadka Poland waa kuwa u dabaaldega muhiimna u arka maalinta magac bixintooda ku beegan, waxayna tani uga muhiimsan tahay xitaa maalinta dhalashadooda.